toban xaqiiqo oo ku saabsan ciidanka Israa'iil. 70 sano ayaa ka soo wareegatay aasaaskii dowladda Israa'iil, taa oo xoog ku haysta dhulka reer Falastiin. Haddaba imise ayay gaarayaan tirada ciidanka Yuhuudda? Meeqaana rag ah? Sidoo kale imise dumar ah? Imise diyaarad dagaal, taangiyo, gudisyo iyo agab militari ay haysataa Israa'iil? Assalaamu calaykum. Daawadayaal ku soo dhawaada xalqo cusub ee kanaalkeena Fawaid. Waxaan jeclaystay in aan idinla wadaago 10 arrin oo ku saabsan ciidanka Yuhuudda. Nambarka 1 wuxuu soo baxay amarka lagu aasaasay ciidanka Yuhuudda bishii 26/1948. Isla sanadkaasi waxaa la kala diray guutooyin Yuhuudi ah oo ka shaqeynayay ciidankii gumeystihii Ingiriiska oo markaa xoog ku haystay dhulka reer Falastiin, isla markaana fududeeyay in Israa'iil ay qabsato Falastiin. Nambarka 2 ka mid noqoshada ciidanka waa waajib rag iyo dumarba. Qof kasta oo idadiisa gaartay 18 sano waxaa qasab ku ah inuu qaato tababar isla markaana ka soo shaqeeyo ciidanka ugu yaraan 2 sano. Nambarka 3 Israa'iil waxay ka mid tahay dowlado tiro yar kuwaas oo ku waajib yeela dumarka inay ku biiraan ciidanka. Haddaba 33% ciidanka Israa'iil waa dumar. Darajada ugu sarreysa ay dumarka Yuhuudda ka gaaraan ciidankani waa korneyl. Nambarka 4 ciidanka nidaamiga Israa'iil tiradiisu waxay gaaraysaa 176,500 askari. Sidoo kale Israa'iil waxay leedahay ciidan kayd oo tir ahaan gaaraya 445,000 oo askari. Nambarka 5 dadka aan wax badan kala socon ciidanka Yuhuudda waxay u maleeyaan ciidanka Israa'iil in dhammaantood yihiin Yuhuudi, laakiin waxaa jira tiro badan oo ka mid ah ciidanka Yuhuudda oo ah Kirishtaan, Dursi, Carab, dad sheegtay in ay yihiin Muslimiin iyo dad kale oo aan aaminsanin wax diin ah oo mulxidiin ah. Nambarka 6 waxaa lagu tiriyaa ciidanka Israa'iil mid ka mid ah ciidamada ugu xooga badan mandiqada Bariga Dhexe. Sidoo kale waa ciidan horumar sameeya, wuxuuna sanadkii 2016 kaalinta 9aad ka galay ciidanka ugu awoodda badan caalamka. Nambarka 7 ciidanka Yuhuudda wuxuu haystaa 681 diyaaradood, 4,170 gawaarida gaashaaman, 6 gujis iyo agab kale oo militari. Nambarka 8 miisaaniyadda Israa'iil 16% waxay ku baxdaa ciidanka, waxayna gaaraysaa miisaaniyadda ciidanka $18 bilyan sanadkiiba. Intaa waxaa u sii dheer ciidanka Yuhuudda sanad kasta wuxuu ka helaa dowladda Mareykanka $10 bilyan oo lagu sheegay in ay tahay taageero Mareykan. Nambarka 9 darajada ugu sarreysa ee ciidanka Yuhuudda waa jenaraal. Taliyaha ciidanka qalabka sida waxaa lagu magacaabaa Gary Eisenkot. asal ahaan wuxuu ka soo jeedaa Yuhuudda Morocco. ogow Israa'iil ciidankeeda inta badan waxay wataan dhalashooyin kale sida Mareykan, Ruush, Ingiriis iyo Kanada. Nambarka 10 ee ugu dambeeya bogga Facebook ee ciidanka Israa'iil waxaa ku xiran 2 milyan oo ruux. Dhanka kale aqoon-yahanada ku xil dheer umuuraha ciidanka waxay sheegaan in ciidanka Yuhuudda qalabka uu haysto uusan u qalmin, waayo ma ahan ciidan geesi ah oo si fiican ugu dagaalami kara qalabkaasi tayada badan. Xaalkoodu waa fuli ula badan. Fadlan subscribe kanaalka.